كنت جرشة تمجر لا ما تبغى أنا يروح بابي يصير قصته صار لي عيني في الميديا اوكي أنا قال لي عيني هذا لك معيني صومنا معا ما أنت قرأتي أو كوبا هذه ما أنت عيد تنجبان كبيحي وحين رحمري وحد حدين يالينا وذكتهاي waxa dhagihiina soo gaaraya wax kale ma ahan ee waa codad sir ah oo ay ku wada sheekeysanayeen Cabdi Ciise iyo sidoo kale fanaanada Safiya Tusmo oo arintooda maalmahan si weyn ay u qabsatay social media uu qabaa iyo anigu ma qabo waxay ahayd su'aal si weyn ay ugu wareereen bulshada Soomaaliyeed Safiya Tusmo oo kal hore wareysi bixinaysa ayaana sheegtay in uu qabo Cabdi Ciise sidoo kalena uu jiraan muuqaalo iyo sidoo kale sawirro uu ka qaaday taana uu ku soo faafiyay baraha bulshada arintaas oo si weyn social media ugu faaftay dad fara badan ay la safteen fanaanada Safiya Tusmo iyagoo u biratumanayay in mar nolosha ay ku arkaan Cabdi Ciise oo ah ninka sida la sheegay ama lagu eedeynay ceebeeyay fanaanada Safiya Tusmo balse warkan iyo codadkan iminka aad maqashaan ayaa gabi ahaanba baabi'inaya oo dhulka ku masaxaya dhacdooyinkii hore ee social media sida weyn u qabsaday dhawaan wareysi ayuu bixiyay Cabdi Ciise ka uu ku sheegay in haba yaraatay aysan jirin wax qabitaan ah oo ka dhaxeeya isaga iyo sidoo kale fanaanada Safiya Tusmo marka laga reebo inuu jiro xiriir labadooda ka dhaxeeya inkastoo xiriirkaas uusan sheegin magaciisa iyo waxa uu yahay codadkan hadda aan idin soo gudbinayna ayaad ku maqlaysaan fanaanada Safiya Tusmo oo si kulul ula hadlaysa Cabdi Ciise iyadoo waliba ku leh eray aan afku soo qaban karin waatan qayb kamid ah codadkii labadan shakhsi ay isku wadaarsadeen maxalkaad waa kasmiyaa walaal bal soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadline hadalkaygu inuu sidee noqdaa baad rabtay dee anigu qabis baan ku diray walaal iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu u sheegnaa wala macaan clipkan inayna shaqo ku lahayno waxaynu inagu ognahay waxaan anigu ogahay waxa aanu mid yaani inaana shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisna way ogeed inaad waxa ka hadasho ma ujeedayno hayda arrimahan kale uu maxayna si dhixgeliyay macaan ogahay waad iga faanisay markii hore wada soconayba imikana ceeb ay kugu tahay lagu dhaahdo Tusmo nolol soo wadaagay ama qabay taasba ka dhaadhaxsan demaya raganimadaada iyo aniga waxa sigama dhaadhaxsan aynu saani wada hor yani waxay fiicneed inaad tiraahid gabadhan waan qabay waana kala tagnay imikana waan kala dhamaanay umada faraha naga qaadan waxay fiicneed inaad tiraahid gabadhan waan qabay waana kala tagnay imikana waan kala dhamaanay umada faraha naga qaadan anigana wax weyn bay ahayd ana wax weyn laakiin you don't want it sheekadii afkaasi ku xidhan malahay walaal macaan marka adiga inta ka doonay taasay ahayd inaan waan qabay dhaho when of course soo dhambaarkay ka xidhan malahay ما أنا جاي سكت مركا أنا بقول له وان قبائل ما يا كنت جرشة تمجر لا ما تبغى أنا يروح بابي يصير قصته صار لي عيني في الميديا أوكي أنا قال لي عيني هذا لك معيني سبحان الله waxa dhagahaynu ay maqlayaan waa wax aad iyo aad loola yaabo balse dunidana yaabo la yaabka ka sameeysan oo inta aad nooshahay wax walbaba waad maqlaysaa ama waad arkaysaa nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban arintan sida weyn saacadii la soo dhaafay u saameysay social media ayaa waxay u muuqataa mid markan xaqiiqadeeda dhabta ah laga daba tagay markii codadkan qaab sir ah loo helay Cabdi Cajuun oo ah ninka sida weyn loo eedeeyo arintan lagu eedeeyay ayaa waxa uu u sheegayaa Safiya Tusmo in wax fara badan ay isku ogaayeen balse aysan jirin arintan qabitaanka ah oo qudhiisaba oo la yaabay marka ay social media ka sheegtay ama wareysi ay bixisay ay ku sheegtay fanaanadan halka iyaduna ay sheegayso in aad ay ugu xumaatay marka uu sheegay in aysan isqabin hase ahaatee hadda iyo wixii ka dambeeya wuxuu doono uu sheegi karo toosna uu qarxin karo wax walba oo jira oo labadaasi qof ay ka dhaxeeyeen adigu sidan maxalkaad waa kasmiyaa walaal bal soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadline hadalkaygu inuu sidee noqdaa baad rabtay dee anigu qabis baan ku diray walaal iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu u sheegnaa wala macaan clipkan inayna shaqo ku lahayno waxaynu inagu ognahay waxaan anigu ogahay waxa aanu mid yaani inaana shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisna way ogeed inaad waxa ka hadasho ma ujeedayno hayda arrimahan kale uu maxayna si dhixgeliyay macaan su'aasha la weydiiyay baan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay waad iga faanisay markii hore wada soconayba
iminkana ceeb bay kugu tahay lagu yidhaahdo tusmo nolol lasoo wadaagayaan ma qabay taas baa kaa dhaadhacsan demaya raganimadaada iyo aniga waxaas igama dhaadhacsan aynu saani wada hado ani waxay ficneed inaad tiraahid gabadhan waan qabay waana kala tegnay iminkana waan kala dhamaanay ummada farahana konton jir 15 jir la tumatay inay ugu baabiisay ku satay sala ay caynaya fiiri media okay aniga la caynaya adil ugu macaynay soo huna maan maalinta quraatay oo ku baxday maanta ahayd tan najbaan ka bixi waxayna dhexmaray wixii dhexdeena yaalina waad ogtahay walaal macaan iminkaba waxa weeyaan hadaan sameyn karin farax ka qaad khasab cili kuguma leh hadaa doonto soo hadalo waan isla tumadeynay dheh haddii kale waxa weeyaan huna macaan dee waxaan ku odhan karo kale ma jirto taaseed salaam yaa huna macaan hay salaamin aniga dhegeysorta arrintan ayaa waxay la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed balse wixii waqtigan ka dambeeyay waxa dad fara badan ama guud ahaanba bulshada u kala cadaanaysa qofka runta sheegaya iyo kan beenta sheegaya waxaana arrintan taageero fara badan ku weyn doonta sida muuqata fanaanada Safiya Tusmo oo dad fara badani ay garabkeeda ka bixi doonaan maadaama markii hore si weyn loo eedeynayay ninka lagu magacaabo Cabdi Ciise kaas oo la sheegay in uu ku dhaqmay ama uu ku kacay wax qof bili aadan ah uu ku kaco tii ugu xumeed oo ah in ooridiisa uu sawir iyo muuqaalo uu ka duubay waliba si qarsoodi ah uu social media ku soo faafiyay balse guud ahaan arrintaas ayaa beenowday oo waxa cadaatay in labadani qof wax xiriir ah oo guur ah uusan ka dhaxayn marka laga soo tago xiriir hoose oo labadani qof ka dhaxeeyay kaas oo aan ahayn guur ama nikaax inta social media ama aaladaha kala duwan ee baraha bulshada aad ku jirto maalin walba waxaad arkaysaa wax ka yaabiya balse arrinkan Safiya Tusmo iyo sidoo kale ninkan abwaanka ah ee Cabdi Ciise waa yaabkiis oo waa yaabkii oo yaab dhaafay dad fara badan oo arrimahan siyaabo kala duwan uga hadlayay kuwaas oo intooda badan aadeen culus dusha u saarayay Cabdi Cashuun oo xitaa mar booliska dowladda deegaanka Soomaalida ay magaciisa iyo sawiradiisa daadiyeen sidoo kale laamaha ammaanka ay sheegeen in madaxiisa lacag ay dul dhigeen cidii ninkaasi gacanta ku soo dhigta balse arrintaas ayaa hadda u muuqata mid daaqada ka baxaysa kadib markii cadeymahan si buuxda baraha bulshada ay u soo galeen intaas ayaan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkii la yaabka lahaa aan idiin soo gudbinayay halkan waa channelka badda cas haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena ha iloobin muuqaalkan aad like garayso inta muuqaalka xiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo adigu sidan maxalkaad u arkaysa miyaa walaal bal soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadline hadalkaygu inuu sidee noqdaa baad rabtay dee anigu qabis baan kuu diray walaala iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu u sheegaynaa wala macaan clipkan inaynaan shaqo ku lahayn oo waxaynu inagu ognahay waxaan anigu ogahay waxa aanu mid yacni inaanan shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo muddiisuna way ogeed inaad waxaa ka hadasho unbaa ujeedadaynu hayda arrimahan kale uuna maxayna sii dhexgeliyay una macaan su-aasha lay weydiiyey unbaan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay waad iga faanaysay markii hore wada soconayba iminkana ceeb bay kugu tahay lagu yidhaahdo tusmo nolol lasoo wadaagayaan ma qabay taas baa kaa dhaadhacsan demaya raganimadaada iyo aniga waxaas igama dhaadhacsan aynu saani wada hado ani waxay ficneed inaad tiraahid gabadhan waan qabay waana kala tegnay iminkana waan kala dhamaanay ummada faraha